الرحيم aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa hay-adda quality controlka ama tayada oo runtii waxay leeyihiin qoladaasi hay-addu waxa la dhahaa hal abuurka curista wax badan bay curiyeen in badan bay ku dadaaleen inay hawl hirgasho hubinta tayada wixii aynu u baahannahay dhar iyo dawo iyo petrol caafimaadkeena wixii ku xidhan dhan in badan bay ku dadaaleen horta waxaan marnaa marxalad bilow ah dal baynu dhisaynaa aad iyo aad u kala daadsan dhibaatooyin badan soo maray markaa waxaa abuurmay hay-ado badan iyo meelo badan oo horteen jiray iminka waxaanu leenahay shaybaadho badan wasaaradda biyuhu qaar bay haysaa wakaaladu qaar bay hayaa hay-addan gaadiidku ciidda meel bay haysaa iyo tayada ay eegto shidaalkii haamahu la joogaa wuu ka sii horreeyey marka halkana waxay noqonaysaa xarun horta marka hore laga hogaamiyo mustaqbalkana waxaynu gaadhay inaynu u tababarro dad aynu gebigooda centralize garayno waxaas dhan iska helo kolba tallaabaynu qaadaynaa halkana waxa weye xaruntii laga wadaayey si cilmiyana baarista howlaha qaranka xaruntoodii marka meel kasta ha yaalo iminkana waxaa baynagu soo kordhay intaasoo mashiin ama baarisoo macinta lagu baaro oo qaar baa ragtun kusta qaar baa gawaari saaran qaar baa buuraha yaalla yacni waxa weeye dalkii dee dad bilowa ma ahayn nin waliba meel buu in yar u carro markaa way isu soo ururi doontaa marka hore sharciga waa la samayn marka sharciga la baaskareeya haddana fulintiisa waa waqti qaadanaysa waa in dadka u wada bislaadaa si la isu soo duulahaa markaa laftiina mararka qaarkood dhibaataada qabsato oo marka halkana laboratory yar xaggana mid yaallo wuxuuna shaqaynaysaa hararaha egeegta war waa la soo raya horta kanaynu ka adkaanayna dokumentkaynu dhammaynayna dadkaynu barayna waayo ninkan isaguna meesha iminka wax ku haya iminka buurta shidan dad ur fadhiya mashiinka yar ee soo haysteen laboratory hayo waa la gaari doonaa inuu u baahdo waarkana kii weynaaya halay soo maray ka hay-adda meel yar ku haysa aakhirka waanu sarraskaraynaa marka aad iyo aad baan idinku bogaadinayaa hawshaa badan ay gasheen waa sii korinaya dagaalka hawl badan baa inoo taalla waa jidbirow halkaa anu waxaan qabaa haddii dadku si wacan u fikiro oonu horumarka u jeersano oonu waxyaalaha yarar ee waktiga naga lumeeyey ka baadna wax baanu qabsan karayna baryo badan waynu ka maarmi lahaa imisaa qaadi naga baxa imisaa khilaaf qabaa'il iyo dhul yaroo la isku laayay barkad baa la isku dilay iyo odayaal isku dhacay imisaa lacag naga baxda imisaa wakti naga luma imisaynu ciidan ammaan samaynaa haddaad imika tagto dalku waa intaa soo degmo odayaal baa soo raaca degmada haa markii hore dadku markay horumar socdaan waxaa la yidhahdaa iskuul noo dhis caafimaad noo dhis imika waxa ku dhahan jeelkaana noo dhiso boliisana noo keeno dee dadka caqliga halaga dugeeyo ilaan wada jeel iyo boliiska dhig mayne waxa su-aasha ugu horeysa degmo wali waxa degmaanu doonaynaa ma qaadi kartaan haa waaba loo ogolaanaya haddana iskama bixin karaa shidaalka gaadhiga ninka guddoomiyahooga waxa weydiisana waxaa ugu horeya xitaa caafimaad maaha waa boliis iyo jeel marka waa dhibaatooyin ka yaraysan lacagta waxa ay naga baxaysa haddaynu dadkeena xagga maskaxda ka heshiino hadday duunka ka heshiiyo duunka war waxaan inoo damaha waxa wanaagga wada qabsana waxaan filayaa dadka qayrkeena horoo maray waynu gaarnaa ruwaanda inaga yar oo inaga dad yar oo inaga dhaqaalo yar oo inaga jaanis yar xataa bad male inagaba caqli badan laakiin waxaa ku luntay khilaaf aan la garanayn oo marka khilaafkaa la doonayo cirka la geey marba waa debdemis uman ku jiraa debdemis halkana bakti marka waxaan u baahannahay idina haddii waxaad doonaysaan hore u kori waayey oo curus boo kaloo saadaan kolba idinaa u kaadiya waa halkan marayno hay-adoo dhan waa caynka laakiin waxaan isugu duway inaynu xagga wanaagsan u dhaqaaqo doorashooyin baynu galaamka ugu buuq badan dalka dhaqaalisu waxa ku lumaa doorasho iyo wakhtigeeda iyo xanafteeda waa mar kaambeynkeeda lagu weerarsan yahay iyo mar natiijo ka soo baxay la isku khilaafin la bogsiinayo iyo qarashka dalka ku baxa waynu fikir kar lahayn war saynu doorashooyinkeena u ururinaa war saynu isla helnaa yani waxaan dad traumatizer wax walba xagga kula ka eegay taana waxaan leeyahay waa laga waantoobi doonaa insha allahu da yartiin